بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هل حديث بان ربينا النفط إذا أشياء وإذن كان إذن حسوسية في صحيح مسلم كيا له نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري ما من مسلم ما جرى qof مسلم oo tukanaya 12 rakacadood oo sunno ah faral aan ahayn hadii uu jiro qof caynkaas yeelaya ilaahay jannu gelinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam 12 rakacadood waxa loo yaqaanaa rawaatib baa la yiraahdaa ama waa salaado raatib ah oo kullamaan salaadaha faralka ah. 2 rakacadood salaada subax bay ka horeeyaan, faatixada kadib rakacada koowaad qul yaa ayyuhal kaafiruun baa la akhriyaa. rakacada labaad faatixada kadib qul huwallahu ahad baa la akhriyaa. salaada dhuhur marka la aadimo 4 baa ka horeeya. 4 rakacadood ee salaada dhuhur ka horeeya laba loo tukadaa. salaada dhuhur marka laga soo baxana laba ka dambaysa, halkaasi waa 6 iyo labadii subaxa ka horeysay waa 8. salaada maghrib laba ka dambaysa, rakacada koowaad qul yaa ayyuhal kaafiruun baa faatixada kadib la akhriyaa. sida subax oo kale rakacada labaad qul huwallahu ahad baa faatixada kadib la akhriyaa. salaada cisha 2 rakacadood baa ka dambaysa, 12 rakacadood bay tiradu noqonaysaa. qofkii tukada oo salaadaha shanta ah ee subaxa iyo dhuhurka iyo casarka iyo maghribka iyo cishaha kuwa ka dambeeya iyo kuwa ka dambeeya sunnaha raaciya ilaahay jannada aqal buu uga dhisaabu nabiga kaleey salaatu wasalaam. waa ay qofka ina ka midka ah ee aan doonin jannada in aqal looga dhiso isagoo nool oo adduunyada jooga oo weli aan adduunyadii ka hoyan. qof waliba ina ka mid ah jawaabtu waxa weeye wuu jecel yahay in jannada aqal looga dhiso ama aqallo looga dhiso isagoo adduunyada jooga oo weli aan dhiman oo ilaahay la kulmin. waa fursad weyn. cimriga iyo noloshu waxay qiimo ku leeyihiin haddii ilaahay ku waafajiyo oo fursad weyn aad ka faa'iideysato. qofna ma garanaya intuu sii noolaan doono. maanta waad nooshahay, waad aragtaa inaad nooshahay. maxaa ka dambayn doona? ilaahay baa ku cilmi leh. maanta waad caafimaad qabtaa, maxay noqon doontaa maalmaha soo socda ama noqon doonaan? ilaahay baa ku cilmi leh, inagoo ilaahay khayr iyo caafiye ka rajaynayna. maanta firaaqo waad heli kartaa, maalmaha soo socda mashquulaad ma kugu iman doonaan? wallaahu aclam, ilaahay baa garanaya. maalintaada ka faa'iidayso, noloshaadana ka faa'iidayso, cimrigaaga ka faa'iidayso. waqtiga habeen iyo maalinku soo maraya mala yacni iyo kugu dhaafin, ka faa'iidayso. salaada casar si gaar ahaaneed iyadu raatib gaara ma leh. 12 rakacadood 4 salaadood oo kale bay la socdaan. ama salaada casar iyadu si gaaru nabigu ugu duceeyay qofkii tukada 4 rakacadood oo sunno ah oo ka horeeya. raxima allahu imra'an salla qabla al-'asri 4. allah u naxariisto qof tukaday salaada casar ka hor 4 rakacadood buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam. waa arrin aad u muhiim ah in salaadaha sunnaha qofku ilaashado. way badanayaan salaadaha sunnaha ee tukanayso.
way biirayaan waad ku badbaadi doontaa ilaahay baa kuu barakayn doona marka salaadaadii faralka ayd miisaanka la saaro ilaa waxa ugu horeeya la iska xisaabinaya waa acmaashii hadday wax iska kaa dhimaan ilaahay malaa'igta wuxuu ku odhanayaa bal hadda eega wax sunnayaala ma leeyahay dabeetana sunnayaasha lagugu buuxinayaa haddaad sunnayaal badan tukan jirtay malaa'igtu waxay odhanaysaa wax badan oo sunno ah baa u yaalla ugu daraba alla odhanaya subxaanahu wa tacaala ilaahay kuwii ka faa'iidaysta oo sunnayaasha badan tukada allahayna ka dhigo marka waxaynu aad iskula dardaarmaynaa 12 rakacadood ee sunnaha ah keliya ma ahee inaa sunnayaasha badsatid markaa weysaysatid haddaad awoodid 2 rakaca iska tukatid salaada duxada 4 rakacadood iska tukatid aad maalinna ka tegin markaad masaajidda soo gasho taxiyatul masjidka 2 rakacadood iska tukatid salaatu leylka tukatid masaajid markaad joogtid oo iskaga wardinayso ku ictikaafayso haddii la addimo dabadeeda iska sunnayso haddii aad maqrib iyo cisho masaajidka dhex joogayso inta u dhaxaysa marba intaad xogaa markaad wardido ama quraan akhrisato haddaadan cashar dhigaysanayn kac oo iska sunnayso waa inaad maalin waliba xisaabisaa maanta qorraxdii waa kuu soo baxday qorraxdii waa kuu dhacday iminka waa sii jiifsanaysaa hameenba ha la joogaa imise rakacadoodoo sunno abaad maanta tukatay waxaa kuu soo baxaysa shalay iyo maanta keebaad sunnahaagu badnaa waxaa kuu soo baxaysa xisaabta naftaadii aad xisaabinayso inta aadan seexan markaaad soo weysaysato hurdada ka hor 2 rakacadoodoo sunnaa iska tuko ha sahashanin walaal sunnayaasha badani waa sad aad u weyn ilaahay hortii marka aakhira aad tagto oo lagu xisaabinayo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina ka yeelo kuwii ka faa'iidaysta noloshooda iyo wakhtigooda iyo cimrigooda oo aan ku mashquulin wax maalaa yacni ah oo ama lagu hadlo ama la dhegaysto ama la daawado kuwa aan ku mashquulin ee wixii loo abuuray garta oo ku mashquula allahayna ka dhigo astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah